wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Shiinaha ayaa sheegay inaanay cidna doonayn inay abuuraan dagaal ganacsi waxaana wasiirku hadalkiisa raaciyay inaan dalkiisa lagu khasbi karin waxaanu raali ka ahayn sida ay baahisay wakaaladda wararka Reuters hadalkan ayaa ku beegan waqti ay bilaamayaan cashuuruhu Mareykanku soo rogay alaabooyinka uga yimaada dalka Shiinaha oo qiimahoodu dhan yahay 430 bilyan oo dollar dhinaca kale afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay inuu Mareykanku si cad u og yahay kaalinta uu Shiinuhu kaga jiro arrimaha ganacsiga adduunka labadan dal ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa bilihii la soo dhaafay isku maandhaafsanaa arrimaha ganacsiga ee ka dhaxeeya labadaasi dal waxaanay arintu gaadhay mararka qaar inuu dagaal ganacsi ka dhex qarxo ayaan Faysal Maxamed telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 magaalada Hargeysa